السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعن داوديال هلكن وجنالك الحرية نيوز waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu doorka roon wararka aan idin hayna xilligan khilaaf cusub oo ka soo cusboonaaday gaalkacyo kadib markii xilka qaadis uu sameeyay madaxweyne xaaf haweeney sargaal sare ahayd oo al-shabaab muqdisho u qaabilsaneed oo la qabtay ciidamada Jubbaland oo sheegay in howlgal ay ku dileen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ay ka sameeyeen gobolada Jubbooyinka ciidamada la kala dhaxdhigay maleeshiyaad ku dagaalamay galgaduud shirkadda DB World oo mar kale ka guuleysatay dawladda Djibouti wasiir dawlihii howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya oo iscasilay iyo Mareykanka iyo Shiinaha oo kala saxiixday heshiis cusub qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka al-xurriya news haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u heshido wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino kulan hagaagsan mar kale saaxiibayaal intaasi waxay hayeen qodobadii ugu doorka roona wararka aan idin hayna xilligan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilownaa wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in khilaaf hor leh uu ka soo cusboonaaday gaalkacyo kadib markii shalay madaxweyne Axmed Cali Gil Xaaf uu xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiinta degmadaasi duqa magaalada gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay isagoo sheegay in waxba kama jiraan ay tahay xilka qaadistaasi Xirsi Yuusuf Barre ayaa carabka ku dhuftay in xilligan madaxweyne Axmed Cali Gil Xaaf uu san xilka qaadis iyo magacaabis toona sameyn karin sidaas daraadeedna uu wali yahay duqa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in uu xilka sii hayn doono ilaa madaxweyne cusub loo dooran doono hoggaanka dawlad goboleedka Galmudug duqa magaalada gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxa uu ka qayb galaya ololaha doorashada maamulka Galmudug oo ka socda magaaladaasi xaaladda Galmudug oo wali isjiid uu ka jiro ayaan la ogeyn sida xal looga gaari karo khilaafka wali ka taagan dhismaha maamulka Galmudug oo la doonayo inuu noqdo maamul loo dhan yahay wali waxa daawanaysaan wararka janaalka al-xurriya news ismaqli daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal haweeney sargaal sare ahayd oo al-shabaab u qaabilsaneyd Muqdisho ayaa la qabtay howlgal gaar ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in lagu soo qabtay haweeney sargaal sare ah oo ka tirsan madaxda al-shabaab ee magaalada Muqdisho xog ay heshay al-xurriya news ayaa sheegaysa in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee laba habeen ka hor galeen xaafad ka mid ah degmada Xamar Jajab ayna ka soo qabtay madaxii al-shabaab u qaabilsanaa canshuuraha gobolkani Banaadir oo ah qof dumar ah ciidamada ayaa la sheegay in mid ka mid ah mobilada ay isticmaalaysay haweeneydaasi ay ku xireen qalab ka sheegaya qofka meesha uu joogo kadibna ay galeen gurigeeda oo ku yaala degmada Xamar Jajab waxaana sidoo kale halkaasi laga soo qabtay 3 ruux oo iyada la joogtay guriga la weeraray oo albaabadiisa lagu furay bamba gacmeedyo ayaa sidoo kale la sheegay in ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaano CCTV sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah saraakiisha ciidamada haweeneyda oo la sheegay in ay bedeshay madaxii al-shabaab ee canshuuraha kaasi oo bilo ka hor lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa wali ku jira gacanta dawladda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali jirtay haweeneydani dhowr simikaar iyadoo sidoo kale magacyo badan oo ay ka mid yihiin Marwo Sahro tabliiqada iyo magacyo kale isticmaali jirtay wali hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ee dhanka amniga kama aysan hadlin arintan waxaana la sheegay in ay ku socoto baaritaano iyada iyo raggi kale ee la soo qabtay Jubbaland ayaa sheegtay in howlgallo ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab ay ka sameeyeen gobolada Jubbooyinka laamaha amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixiyeen howlgallo ka dhacay gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose kaasi oo ay fuliyeen ciidamada maamulkaasi afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ciidamada Jubbaland ku dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena qaarkood ay nolosha ku soo qabteen xilli warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayuu sheegay in howlgalka laga sameeyay deegaanada Cabdalla Biroole Yaaq Bishaaro iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Jamaame waxa uu sheegay in howlgalladaasi guulo kale oo waaweyn laga gaaray sidoo kalena ay ciidamadu dileen 4 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab kana qabsadeen sanad military sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ciidamada Jubbaland ay u taagan yihiin kahortaga in faral amniga liddi ku ah ay ka geystaan al-shabaab degmooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland iyo al-shabaab ayaa inta badan waxa ay ku dagaalamaan gobolada Jubbooyinka waxaana guulo kala sheegta labada dhinac ee marka halka isku farasaara
weli waxaad daawanaysaan wararka janalka alxuriya news ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay. ciidamo ayaa la kala dhex dhigay maleeshiyaad ku dagaalamay gobolka Galgaduud. ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa waxaa la kala dhex dhigay maleeshiyaad dagaal geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ku dhex maray deegaanka Mirxayle iyo Bangaale oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Cadaado iyo sidoo kale Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. ciidamada la kala dhex dhigay labadan maleeshiya beeleed oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada 13aad ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qaybta 12aad Colonel Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere. waxayna ku guuleysteen ciidamadaasi in ay dagaalka joojiyaan. dagaalka ka dhacay deegaanada Mirxayle iyo Bangaale ayaa waxa uu salka ku hayaa isku qabsi baraag laga qoday deegaanka Mirxayle, waxaana dagaalka inta la xaqiijiyo ku geeriyooday 5 ruux halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyay ee haatan naga soo gaarayay deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka alxuriya news ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. shirkadda DP World ayaa mar kale ka guuleysatay dowladda Djibouti. shirkadda ka howlgasha dekedaha ee DP World oo laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay kiis sharci darro ah oo ay ka gudbisay dowladda dalka Djibouti kaasi oo la xiriira khilaafka maamulka dekedda Dooraale ee u dhaxeeya labada dhinac. war-saxaafadeed ay soo saartay DP World ayaa lagu sheegay in koox garsoorayaal ah oo dacwad ka dhageysanayay maxkamadda fadhigeedu yahay London oo dhageysanaysay dacwadda caalamiga ah ayaa amar ku siiyay dowladda Djibouti in 2 bilood gudahood ay dib ugu celiso xuquuqdii iyo faa'iidadii shirkadda DP World ay lahayd ee uu dhigayay heshiiskii labada garab ay kala saxiixdeen sanadii 2006 ama in ay bixiso dhammaan khasaarihii galay shirkadda DP World. DP World ayaa intaas ku dartay in lacag ka badan $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ka qasaartay tan iyo markii dowladda Djibouti kala wareegtay maamulka dekedda sanadkii 2018. shirkaddu waxay sheegtay in garsoorayaasha go'aankan soo gaaray ay sheegeen in dowladda Djibouti ay tallaabo sharci darro ah qaaday markii ay si qasab ah shirkadda DP World uga qaaday maamulka dekedda Dooraale bishii February ee sanadii 2018. dowladda Djibouti wax wara kama aysan soo saareen hadalka ka soo yeeray shirkadda DP World ee ku aadan in ay ka guuleysatay. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo 2018 bishii June waraysi gaarsiiyay mid ka mid ah TV-yada ka howlgala dalka ayaa waxa uu ka hadlay dacwadda u dhaxaysa shirkadda DP World iyo dowladda Djibouti. madaxweynaha ayaa sheegay in Djibouti ay leedahay saamiga ugu badan shirkadda ayna arkeen shirkadda DP World in aysan ka shaqaynaynin danaha dekedda Djibouti sidaasina looga wareejiyay maamulkii dekedda. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka alxuriya news ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. wasiiru dowlihii wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iscasilay. wasiiru dowlihii wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Kaariye Qoorqoor ayaa ku dhawaaqay in uu xilkaasi iska casilay maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Galmudug. Qoorqoor ayaa ah musharax ay wadato xukuumadda Soomaaliya ee doorashada Galmudug, waxaana la filayaa in lacag badan ay ku baxdo xildhibaanada isaga u codeynayo si uu ugu soo baxo doorashada maamulka Galmudug. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale isku dayeysay in xildhibaanada ay soo xulayeen odayaasha qaarkood ay bedesho si ay u xaqiijiso in la soo magacaabo xildhibaano xukuumaddu ku aragti ah inkastoo qorshahaasi aan lagu guuleysan. doorashada maamulka Galmudug ayaa la filayaa in ay noqoto mid adag, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in lama filaan uu ka dhici karo lagana yaabo in laga guuleysto xukuumadda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina wararka dibadda, Mareykanka iyo Shiinaha ayaa heshiis cusub kala saxiixday. labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay maanta oo Arbaco ah kala saxiixdaan heshiis cusub, inkastoo ay jirto $100 bilyan oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac ay iskugu jawaabeen. haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khilaafka daciifka ah ee labada dhinac ay dul dhigeen badeecadaha ay isku dhoofiyaan. canshuur kordhinta ayaa sidoo kale sideeda sii ahaan doonto, waxaana la filayaa in Donald Trump iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha
ay ka wada hadlaan arrimo badan oo la xiriira xiriirka dalkaasi waxaana la filayaa in uu weji cusub yeesho xiriirka dhaqaale ee ka dhaxeeya labada wadan ee Shiinaha iyo sidoo kale dalka Mareykanka guud ahaan dhageystayaal iyo daawadayaal waa naga intaa wararka aad kala socoteen janaalka Al Xurriya News haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar